marka kuurihii ii soo dhacaan arkay waan shallaay waxaan dhahay haddaad 2 bilood ama bil aad tarbaja joogi lahayd kuuraha dhan waa heli lahayd marka taas aniga maalinta gaabiyay laakiin hadda waxaan rabaa halkan aan guri ka dhisto oo hatta meesha waxaan rabaa inuu ahey waxaan ka wada la fahmay ma bas hadii xalay soo haweeyo ani waa banaanahay ya da meesha wax laan aan noqonin waa in la isku dhex noqdaa oo baan wiilo iyo qalmo meesha laga soo saaro meesha guri aan ka soo dhisto marka maxaa waaye waa ya waxaa yiri Soomaali waxay tiri daliya dheeraad maxaa lagu soo dhaweeyaa bas hadana waa in farweyne marka meesha wax laan aan la ka noqonin marka wanaaga ay tusteen maalintaas wallahi waan in haye waanad faadama geedi oo kamid ah xildhibaanada ismaamulka DNFD ee dalkaasi Kenya Soomaalida halkaasi degan ayaa meel fagaara ah degmada lagu magacaabo Tarbaja oo ka tirsan ismaamulka Garissa run ahaantii waxay ka tiri meel fagaara ah kolkay u qodbeynaysa kumanaan shucuub ah oo isugu jira rag iyo dumar dad waaweyn iyo dad yar intaba waxay tiri waxaan doonayaa in halkan aan ku aqal galo waxaad iska soo saartaan nin rag ah oo i guursada kolkii raggii goobta taagnaa ayaa caqabad waxay noqotay in la waayo hal nin ku dhiirada isla markaasna goobtii ku waafaqa oo arinteedii hadii ay kaftan u dhaheysay hadii ay runka ahayd intaba jawaab ka bixiya falaqeynteeda ay qaadatay in baraha bulshada la soo dhiga isla markaasna aad loo falanqeeyo oo ragga goobta taagnaa dhaleecayn dusha looga tuuro maadaama ay ceebeeyeen raggii taasina aysan ku jirin xeerka ragga sida ay sheegeen dad badan oo baraha bulshada ku kaftamayay oo oraahiyo cajiib ah halkaasi ku soo qorayay waxayna dhaheen arintaasi waa arin loo baahan yahay waa in ay qaabilaan ay hadii maaragta sidaasi ay tiri haweeneydaasi ka tirsan ismaamulka Wajeer dhanka iyo Soomaalida ku nool dalkaasi Kenya arrimooyinka kaftanka la yaabka su'aalaha iyo xaqiiqada intaba lama ogaan karo sayshee baraha bulshada ayaa noqotay goob Soomaalida ay isaga kaftamaan hadii hadal yar uu soo yeerana falaqeyn aad u ballaaran laga sameeyo sayshee wax qulubteeda ku jira inaba ma ogaan karno ayada qureeda un ba ogaan karta siyaasi darteed ayaan ku soo gudbinay warbixin kooban oo haatan janalka Dooxa Media hadalkan idin soo gudbinay ilaantiin ba aad u mahadsantiin waxaa idin leenahay ku soo dhawaada janalka Dooxa Media markale inta barnaamij aynkan kale taan ku kulmi doono gedigiin waxaa idin leenahay nabadgelyo